daarmi عليه الصلاة والسلام waxaa ka mid ah haweenka xuquuqdooda in la ilaaliyo nabigu عليه السلام khudbadaha uu akhrinay xilliyada kala duwan hadaladii ku soo arooray marar kale uu ka hadli doona dabcan waxaa ka mid ah fattaqullaha fi nisaa haweenka ilaahay kaga cabsada ha ku xad gudbina hadduu sinina xuquuqdooda si sax ah ula dhaqma خير ودردار ما كم ده مرة كقار كيد يسوق جلسي طبعا خطبة حاجة الوداع أو يكون جرتي مرر كلنا وكهل النبي عليه الصلاة والسلام وأنت اللي اسمها برشيد وكسو جري وكهل النبي عليه الصلاة والسلام دردارنا قدام بينا وحيابي حتى مركي سكرات الموت كهينا كم ده مركا حوينكم مركا لا يجوا إنه أفيرسنا تاريخ ذا يسويال كبني آدم وحد أركيسا وحيابي آد فالحون والله جن حق إن هوينك اللي يقول لك عين ilaa maanta oo la joogana in qaar meelo ka mid inay dhibaatooyinkii iyo meelo waxyaabo faal xun jiraan hadii waxyaabaha qaar kood meelo ka baxeen ama is dhimeen waa aynu soo aragnay xilliyada qaar kood waxa laga doodayay haweenku ma bani aadan ba mise bani aadan ma waxa laga doodayay haday bani aadan noqotay ma naf shiriira oo shar ah ba ku jirta mise naf caadiya ku jirtay hadii ay soo noqoto ninka ma la siman tahay mise lama simna yani insaaniyada qofka bani aadamnimadkiisa ayaa meel laga dhacay ayaa la isku haystay marka islaamku imanayay mar waa taa inuu soo sheegnay aabuhu inantu dhalayba inuu aasay isagoo ka cabsi qaba ceeb wuxuu doonaha ka cabsi qabo laakiin iyadoo nool buu aasay mugtay inuu barbaariyo akhlaaqdeeda ilaaliyo oo waxyaabo hawl sooma hawlaha soo dhabu ka eersan inan kuba xumaan uu sameeyaa muxuu inanta u aasaya inan kuba xumaan uu sameeyaa inantuna way khalad way ka dhici karay moogtahay marka waxa ku jirta marka yani maxaa khaladkii raggu uu sameynayay iyo kii inantana uu ciqaab xoog leh u mutaystay ragguna uu ciqaabta u mutaysan islaamka markaad eegtana ciqaabta uu sameeyay dembiga cidii samaysay rag iyo dumarka ay doonadana ciqaabta uu sameeyay cibaadada uu sameeyay ciqaabta uu sameeyay amaam alqaanuun uu sameeyay wax walba uu sameeyay marka waxa ku jirta marka halkaasi hawe dhinac kale waad arkaysaa dhibaatooyinka loo geysanayo marka fawaaxishta iyo munkarka iyo waad arkaysaa iyadoo haweenkii waxyaabo xayeysiis iyo fawaaxish iyo wax kale loo adeegsanayo fidno loo adeegsanayo marka haweenku marka la eego rag waxay u adeegsadeen nolosha meel ay ku dulmiyaan meel ay dhanka kale uga kharibaan meel ay si noqdaan oo waxa ku jirta haweenkii iyo raggii markii quwadii muruqa la eego raggii baa xoog badan awoodiina iyaga gacanta ku hayay marka nabigu kaleey salaatu salaam wuxuu uga digay meelaha waxaad qiyaastaa nolosheena Soomaalida markaynu eegno ummadaha kale inaan garanayn bay naga daa qoyska hooyadu ka baxdo burburka ku dhaca caruurta intuu la egyahay waxa ku soo baxaysa kaalinta hooyada inayna aabuhu buuxin karin laakiin haddii aabuhu kaalintiisa buuxin waayo hooyadu inay soo dhadhoweyso midalan aabihii reerka masruufaya u shaqaynayay haddii hooyadu intay baxday u soo shaqaysay caruurtii masruufta gaajo ugama dhimato haddii laakiin aabuhu si kasta ugu dadaalo daryeelka iyo ricaayadii ay hooyada ku haysteen ma siin karo marka halka waad ku arkaysaa xataa barbaarinta uu soo barbaaray qoyska burbursan qoysku aan hooyada lahayn ubadka ka soo baxa noloshoodu uqad nafsi iyo saameyn bay ku leeyihiin uqad nafsi ay leeyihiin kuwa hadhow nolosha kale bulshada burburiya qayb weyn bay ka noqdaan marka halka waxa ku jirta haweenku bulshada waxay kaga jiraan qayb weyn haddii marka waa in laga ilaaliyaa dulmiga waa in laga ilaaliyaa inxiraafka waa in laga ilaaliyaa si khalad in loola dhaqmo waa in laga ilaaliyaa in si khalad ah loo tawjiihiyo nabigu markuu ka sii dardaarmay kaleey salaatu salaam waa qodob kale oo muhiim ah iyaduna markaynu eegno xadaaradii kala duwana oo xadaarada islaamiga ay kamid tahayna meelaha dhaliilaha waaweyn ay ka jiraan haweenka kamid ah marka waxaad moodaa nabiga kaleey salaatu salaam wax uu sii arkayay oo ka sii dardaarmayo inuu tafaasiisha arkayo loo sii waxyooday way dhici kartaa inaan loo waxyoodna way dhici kartaa laakiin tiirarka asaasiga ee ummadu ay ku dhisan tahay waxa kamid ah haweenka xuquuqdooda in la ilaaliyo bani aadamka guudna ha la ilaaliyo laakiin dumarkana gaar ha loo ilaaliyo ahmiyada ay leeyihiin baa si gaar ah looga dhex saaray bani aadamka iyo sida ay ugu nugul yihiin dhibaatada ugu nugul way u nugul yihiin way u nugul yihiin waan gartay marka